Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Angola. Dalka Angola ama Jamhuuriyadda Angola wuxuu ku yaalaa galbeedka qaaradda Afrika. Waa dalka labaad ee shidaalka soo saara ee ku xiga Nigeria, waana dalka afaraad ee adduunka ee soo saara macdanta loo yaqaano diamond-ka. Xagga koonfurta waxaa ka xigaya dalka Namibia, xagga waqooyina waxaa ka xigaya Jamhuuriyadda Congo Democratic. Xagga barina waxaa kaga aadan dalka Zambia, xagga galbeedna waxaa kala beegan Atlantic Ocean ama loo yaqaano badweynta Atlantika. Cabirka dalka Angola waa 1,200,000 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Waa dalka toddobaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. Caasimadeeda waxaa loo yaqaanaa Luanda. Tirada dadweynaha sanadkii 2018 waxay gaadhay 30 milyan, oo xagga dadweynuhu ka kooban yahay qabiilo fara badan oo u badan qabiilada loo yaqaano Bantuudka. Madaxweynaha dalka magaciisu waa Joao Lourenço. Luqadda rasmiga ee dalka laga hadlo waa Boortaqiis iyo luqado kale oo ka mid tahay luqadda qabiilka Bantuudka. Angola waxay xorriyaddeeda kala soo noqotay dalka Boortaqiiska 1975. Lacagta dalka laga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa Kwanza. Xagga diintu tahay 47% Kiristaan oo u kala qaybsan Catholic iyo Protestant, inta kalena bilaa diin ay yihiin. Dhaqaalaha Uganda wuxuu ku dhisan yahay beeraha. Waxa ugu badan ay soo saaraan waa heedda iyo sonkorta. Xagga kale, Uganda waxay caan ku tahay inay shidaalka soo saarto iyo diamond-ka iyo dahabka iyo macdanta loo yaqaano kuubarka. Haddii loo eego xagga waxbarashada, dalka Uganda kuma wanaagsana waxbarashada. Xagga 58% dadweynuhu yihiin jaahil oo waxbana akhrin karaynin waxbana qori karaynin, sababtoo tahay gumaystihii Boortaqiiska oo haystay 4 qarni. Xagga dalka uu ka furan yahay jaamacad keliya tolo dalka ku taala. Xorriyaddeeda waxay kala soo noqotay dalka Boortaqiiska 1975. Xagga ay ka bilaabatay dagaal sokeeye oo socday 27 sannadood, ka bilaabo 1975 oo socday ilaa 2002. Maalinta Jimcaha waa maalin u gaara ragga. Xaggay dibadda u soo baxaan oo dumarkooda kala tagaan guryaha. Dalkaasi caan wuxuu ku yahay ciyaaraha ama waxa loo yaqaano dansiga. Xagga badanka dadweynuhu u yaqaanaan ciyaarahaasi waa caan. Dadweynaha dalka Uganda waxay caan ku yihiin waxa loo yaqaano street business ama ganacsiga wadooyinka. Xagga wadooyinka ku helisid wax kastaba oo dadweynaha Angola waxay ku caan yihiin waxa loo yaqaano street business ama ganacsiga wadooyinka. Xagga oo wax kastaba ka helisid sida spare parts-ka, moobilada, suudhadhka, elektaroonika, wax kastaba u baahan tahay waxaa ka helaysaa wadooyinka. Dadweynaha Angola waxa uu caadayaa in geeridu 7 cisho ay socoto. Xagga oo casuumad weyn dadweynaha loo sameeyo oo cunto iyo sharaab dadka loo qaybiyo.